الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما كسوق القلياش حفلة قيمها بدن ومسؤولين عادوا كلا دوين هاي كسوق القليان waxaan leenahay dhamaantiin waa idin salaamayaa qof walba mansabkiisa iyo maamulku ku joogo ayaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanka bacdi runtii warkayga farxad dartiis buusan meelihii la rabo taaban karin. Fursad iyo farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan qiimaha badan. Marka koowaad waxaan leenahay gabdhaha hambaliyo waxaan idinku hambaliyeynayaa barnaamijka horumarka oo aad gaarteen. Filimka meeshaan lagu soo bandhigay runtii kulligiis waxaan ka maragnahay inuu wax jira yahay oo uusan aan la soo been abuurin oo waxa meesha lagu soo bandhigay oo waxqabadka iyo horumarka iyo tadawurka ay sameeyeen intaas iyo in ka sii badanba inay gabdhuhu qabteen. Waxaan marka ugu hambaliyeynayaa inay ku guuleysteen qaybaha kala duwan ee ganacsiga. waxaan u rajaynayaa marka inay ku sii guuleystaan oo runtii aad u sii horumariyaan. ganacsigu waad ogtihiin oo wuxuu u baahan yahay waa 3 qodob. wuxuu u baahan yahay marka koowaad adkaysi in loo dulqaato qofka ganacsiga bilaabay uu dulqaad sameeyo inuu ammaano sameeyo oo uusan waxyaabaha ammaano darrada uu ka fogaado iyo inuu qofku sakhi yahay qof sakhi inuu noqdo oo sadaqada ku fiican sadaqada iyo inaad ku fiicnaatid iyo horumarkaasna qofku waxa la rabaa markuu ganacsiga u dhaqaaqay xaqiisa inuu wax fakara ka haysto diintu waxa ay ka tiri ganacsiga tijaarada waxa ay ka tiri xaq lagu leeyahay xaq asagu uu leeyahay horumarka uu sameyn karo wadada uu marayo intaas oo dhan kitaabka ugu yar oo safiina salaadka la yiraahdo qofkii akhrista ka heli kara horumarkaas. marka waan ognahay gabdhuhu ammaano iyo dulqaad way leeyihiin aadaan ugu naqaanaa ganacsiyada ay soo iqtiraacaan runtii inta badan ma guul daraystaan. marka waxaan leenahay rug ganacsi ahaan qayb dhanaan nooga mid ah hadda dadka hal abuurka meeshaan ka muuqda qayb ka mid ah rugta ganacsiga hogaamiyaalkooda ka mid yihiin xafiisyada xafiis gaar ay ku leeyihiin xafiiska rugta ganacsiga waxayna ku matalaan gabdhaha maanta meeshaan fadhiya iyo kuwa maqanba way ku matalaan. annaguna waxaan u aqoonsanahay ganacsiyada guuleysta iyo horumarka la sameeyay Soomaaliya sanooyinka la soo dhaafay waxa ay ku badbaadeen inay gabdhaha yihiin. marka gabdhaha waxaan leenahay aad u mahadsantihiin. waxaan ognahay dhalinyarada wax soo baratay oo wiilasha iyo gabdhaha ah 90% dulqaad hooyo iyo dadaal hooyo wax ku soo barteen. waxaan u rajaynayaa marka in amaalkii ay hooyo wax ku soo bartay aysan ka amaal dhicin waa u rajaynayaa dhalinyaradaas wax soo baratay oo waxbarashadoodina sida hooyo ay u rabtay ay ugu miro dhalaan ixtiraamkana meel kastoo hooyo ay ku arkaan ay ku ixtiraamaan ayagana saasaan u soo jeedinayaa. annaga ganacsiga guuleysta waxaan u aqoonsanahay gabdhuhu inay ka mid yihiin. waxaan runtii aad iyo aad u dhiirigelinaa oo ka hormarinaa qaybaha kale markaan qabanayno siminaarada 80% gabdhaha jaamacadaha ka soo baxay ayaan u qabanaa siminaarada. waxaan ka caawinaa markii oo dhalinyaradu qaar ka mid ah noo yimaado oo rugta ganacsiga yimaada oo noo sheega buugga difaacashadiisa inay uga baahan yihiin gacan. waxaan ku darnaa professorro jaamacadaha wax ka dhiga oo rugta ganacsiga ka mid ah. waxaan ka kaalmaynaa oo ka gacan siinaa waxa weeye wixii yaroo markaas fee ah oo ka dhimanaada gacanaan ka siinaa. wiilashu inta badan uma badna gacantaasi gacan gabdhaha u gaara weeye. waxaanan ognahay gabar wax baratay bulsho wax baratay inay tahay gabar hanti yeelatayna bulsho hanti yeelatay inay tahay. waa idinkugu hambaliyeynayaa horumarkiina iyo dadaalkiina. waxaan leenahay ilaahay idin la garab galo. waxaan idin soo dhawaynaynaa runtii aad iyo aad u soo dhawaynaynaa oo aan rugta ganacsiga wakiil uga nahay inaad guuleysataan. hay-adaha oo hadda Soomaaliya la leeyahay waa kaalmeynayaan oo horumarka sameynaya ama training sameynaya ama wax deyminaya businesska yararka ah. waxaan ugu baaqaynaa ayagana inay gacantooda u badnaato gabdhaha sababtoo ah gabdhuhu uma badna inay guul dareysto ganacsigooda inuu guul dareysto uma badna. aad iyo aadaan idinkugu hambaliyeynayaa
مشروع ما أنت ماشان لقى فرينا ونودع فرينا وأنا إذا كسر دويننا وأنا إذا كلا قيب قلنا هذه عدد ما سنتين ساسان ربعنا عن كوير هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.